cashirkeenan kaga dambeeyay wuxuu marayay how to resize window using only the keyboard marka la isticmaalayo sidee resize loo sameeyaa ayaan isku keen dambeysay. Waxaan qaadan doonaa sidee maximize loo sameeyaa active window-gaaga. waxaa leedahay alt space bar, system menu waraaqda yareeda kusoo baxayso, kadibna waxaa taabataa x ama waxaa sameysaa double click qaybta sare ee title barka. sidoo kale waxaa sameyn kartaa click maximize button qaybta xigta ee kore ee window-gaaga. sidoo kale ciwaanka xiga wuxuu noo sheegayaa sidee restore loogu sameeyaa maximize windowgii kuu weynaa ama daaqadii weyneyd sidee u yareyn kartaa, usoo celin kartaa. waxaa leenahay alt space bar dhehaysaa, kadibna waraaqda yareeda kusoo baxay system menu-ga, kadib waxaa leenahay type waxaa taabataa ama aa qortaa letter r, xarafka r, ama option kale waxaa sameyn kartaa double click inaad dhehday title barka. option kale kuu furan waxaa sameyn kartaa inaad click siisid buttonka xiga ee dhanka midigta geeska ka jira window. bal labadaas aan sameyno. tusaale window-gaana ii furan, waxaa rabaa hadeertaan wuu yaryahay inaan weyneeyo. waxaanan dhahay alt space bar taabo, kadib system menu waraaqda yartaan allaa kusoo baxayso, kadib waxaa raadisaa meeshaan waxaa ka raadisaa maximize aa u baahanahay. maximize markaa u baahan tahay meeshaan ka raadi, kadibna waa kana. kadib maximize waxaa ka fiirisaa cabirka yarka, meeshaan ka raadi cabirka yarka. maximize markaa meeshaan ka raadisid waxaa ka fiirisaa xarafka hoos laga xariiqay, waa xarafka x. kadib waxaa taabanayna x sidaas u weynaada. option kale waxaa jira aan ku weyneyn karno, waxaa leenahay buttonkan aa ku dhufanaynaa, wuxuu noqonayaa ayadana maximize. option kale ku weyneyn karnaa jirto, waxaa leenahay qaybtan title bar alla, qaybtana waxaa sameynaynaa double click, laba mar click siinaynaa, ayadana sidaasoo maximize ku noqday. sidee marka maximize active window ku sidee loo yareeyaa ama restore looga dhigaa? waxaa leedahay alt space bar, system menu waraaqda yareeda kusoo baxday, kadib meeshaan waxaa ka raadisaa restore marka waa tanaa xarafka hoos laga xariiqay, maxaa waaye xarafka r. kadib waxaa leenahay r taabo, kadib waxaa leenahay r taabo. r markaa taagto wuxuu sameeyey wuu yareeyey. okay, option kale oo ma jiraa aa ku yareyn karo? waxaa leenahay qaybtan buttonkan oo hadaaya maximize u isticmaalaya hadeertaan waxaa u isticmaali karaa restore, ayadana wuu yareeyey. sidee marka option kaloo saddexaad ma jiraa aa ku yareyn karo? waxaa sameyn karnaa option kaloo saddexaad hadaa ku yareyn karno. qaybtan sare ee title barka waxaa sameynaya laba mar keliga aa siinaya, isla marka wuxuu noqday restore ama mid yaroo noqday. saddexdaas option aa ku sameyn kartaa restore hadaa u baahato. ciwaankeen xiga wuxuu sheegayaa sidee loo sameeyaa minimize, in la joojiyo hoola waday howshaada inaad joojisto minimize ku sameystaa rabtaa. waxaa leenahay alt space bar, system menu waraaqda yarta kusoo baxda, kadibna xarafka n taabo, ama waxaa sameyn kartaa option kale minimize buttonka ku dhufanaysaa qaybta saddexaad ee dhanka midigta ee window-gaaga. taskbar maxaa la lahaa? taskbar waxaa leenahay had iyo jeer waxaa laga helaa qaybta hoose ee screenka ama shaashada. kana waxaa leenahay marka taskbar ama kan meesha ka muuqda naftirkiisa, isagoo sawir waa kana, isagoo live ahna waa kana. sidee marka loo sameeyaa minimize? active window-gaana ii furan, waxaa rabaa inaan minimize ku sameeyo. active window horaa usoo sheegna folder ama document ama wixii kuu furnaado waxaa leenahay inaan minimize ku sameynaa rabnaa. waxaa leenahay buttonkan waa ku dhufan kartaa. sidoo kale haddaa ku dhufatay wuu yaraanayaa. option kale ma jira? waxaa leenahay alt space bar, kadibna xarafka n aa taabanay. n intaadan taabanin waxaa isweydiisaa
minimize meeshaan ku jirta xarafka hoos laga xariiqi ky ny marka inaa taabanayna. marka ujeedka maaha markasta inaa alt space bar aadhada kadibna xarafka inta ka raadisa. automatic waxaa la rabaa maskaxda inaad ku qabatid minimize hadaa maqashay n inaad taaban kartid, maximize hadaa maqashay x inaad taaban kartid, move hadaa maqashid m inaad taaban kartid, size hadaa maqashid ama resize hadaa maqashid s inaad taaban kartid. marka waxyaabahaas dhan noo soo dul marnay. qaybtan ugu dambeysa waxaa waaye hadeertaan minimize marin. minimize marka labadaas option ku samayn kartaa inaad dhahdid buttonkan ku dhufatid minimize sidaas kugu noqdo qaybtan hoos oo kusoo gali doonaa, ama optionka inaad dhahdid alt space bar kadibna aad dhahdid n. sida hore usoo sheegnay qaybtan hore waxaa noo yaalo taskbar waxa la yiraahdo. sidee marka log loo saaraa taskbarkaaga? taskbarka log hadaa rabtid inaad saartid sidaan samey, right click aa leedahay meel banaan oo kamid ah taskbarka, kadib waxaa leedahay log taskbar optionkaas oo samayn kartaa taskbar markaa log saarayso. taskbar markii aad sameynayso in taskbar hadaa rabtid inaad qariso maxaa sameynaysaa? right click aa leedahay meel banaan kamid ah, kadibna taskbar setting, kadibna turn on aa leedahay automatically hide taskbar. optionka xiga waxaa noo sheegaya ciwaanka xigo sidee locationka shaashada looga bedelaa. hadda wuxuu noo yaala qaybta hoose, right click aa leedahay meel banaan kamid ah taskbarka, kadib waxaa leedahay taskbar setting, kadibna locationka aad rabtid aad ka dooranayso optionskan. bottom ma rabtaa hoose hadduu yaalaa, left bidix ma rabtaa, midig ma rabtaa, right top ma rabtaa. taskbar horaa usoo sheegnay waa kana. log sidee loo saaraa? right click aa leedahay kadibna log taskbar waa kana. log hadaa saara hadeertaan wax movement ma sameynayo. haddii aad ka qaado aad qabto meeshaan leftiga muuska ama touchpadka isticmaalaysid oo laptopkaaga korgeey, inta geey, xagga geey, qaybta hoose keen, qaybahaas dhan saas u wada kartid. laakiin log haduu saaran yahay oo move samey asdhaho wax movement lama sameyn karo. waxaa kaloo xigo sidee taskbarka loo qariyaa. right click aa leedahay taskbar setting, kadibna waxaa kusoo baxaya window, kadibna waxaa kusoo baxaya windowgan, kadib meesha waxaa ku qoran automatically hide taskbar on desktop mode. haddii on aa dhaho waxaa dhacaya taskbarka meeshaan saarnaa wuu qarsoomay, haddaa off dhaho wuu soo muujismay. qaabkaas waxaa samayn kartaa hide iyo show, labadaas option on iyo off taasaa sameynaysaa. qaybta marka waxaa waaye desktop mode. hadaa rabo marka tablet mode ka waran oo laptopkaaga tablet camal modeka tabletka kaa saaraya. tusaale tablet modeka waxaa waaye meeshaan ku dhufanaya qaybtan tablet mode waaye. markaa dhaho hadda automatically hide taskbar tablet mode. haddii on aa dhaho maxaa dhacaya? taskbarka qaybtan wuu qarsoomay. haddii off aa dhahona wuu soo muujin. marka labada taskbar isku mid maaha. kii desktopka caadiga ama laptopka wuxuu ahaa iconisa inta ii saarnaa, software inta ii saarnaa. kan tabletka waxa way ii saar. marka tabletka waxaa iskaga qaadi kartaa inaad kan iska xirtid off dhahdid kadibna caadiga u isticmaasho. hadeertaan taskbarkeena waa kana. hadaa on dhaho wuxuu sameyn doonaa taskbarka oo desktopka wuu qarin doonaa. minimize dhehkan waa ka saar. goorma soo muujismaa? markaa hoos geeyo falaarto kale gudaha aan geliyo wuu soo muujismaa. mujida taskbarka waa qariy, shaashada oo iconiska saarnaa waa qariy, horaa cashir usoo qaadanay. marka qaabkaas samayn kartaa. sidee marka loo sameeyaa locationka? hadda intuu yaalaa taskbarka qaybta hoose u yaalaa. sidee marka booskan u yaala maana kor midig bidix aa u geyn kartaa? waxaa leenahay taskbarkana keen, right click dheh, waxaa dhahdaa right click, kadib waxaa dhahdaa taskbar setting, midig ma rabtaa bidix ma rabtaa, midkaa rabtid ka xulo. afartan options aa doorasho u leedahay. marka tusaale waxaa leeyahay hadeertaan top wuxuu sameyn doonaa taskbarka kor u geyn doonaa.
automatic wuu qarsan yahay. waxaa leeyahay sidee u qarin wuu soo muuji wuu qarsanaa wuu soo muujiyey. okay, taska bar hadda wuxuu saarayaa qaybta kore. haddii aad ka laabto wuxuu sameyn doonaa taski barka wuxuu saarayaa qaybta kore. sida lagu soo celiyaa waxaa leenahay email right gay hadaa rabtid midigta, waxaa geyn kartaa leftiga bidixda minimize dheh, halkaas geeskaas kuu jooga, meesha rabtid ay geysan kartaa. sida caadiga ah waxaa sameyn kartaa oo standardka qaybtaas hoos ku yaalaa.